Magacaygu waa Muraad, waxaana jira 30 sano. Qisadani waxay igu dhacday markii aan ka qalin jabiyay jaamacadda muddo yar kadib. Waxayna igu dhacday anigii laba wiil oo saaxiibanahay, kuwaasoo la kala yiraahdo Xasan iyo Khaalid oo aan isla dhigan jirnay markaas dugsiga sare. Maalmo kadib markii aan ka qalin jabinay jaamacadda, waxaan go'aansanay anigii saaxiibaday inaan markaasi jawiga soo bedelano oo aan aadno safar yara. Markaas waan soo guranay alaabteena, muddo yar ayaynu ku qaadatay inaan isdiyaarino. Kadibna Khaalid ayaa wuxuu soo qaatay gaarigii aabihiis. Ugu dambeynna safar ayaan galnay. Alaab badan ayaan wadanay, laakiin ugu dambeyn waan gaarnay meel aan ku nasanno. Meeshaas oo ahayd meel iska cidla ah, waana ku tagnay oo teendho yara ayaan ku samaysanay. Waxay nagu qaadatay 3 ilaa 5 beri inaan isku diyaarino sababtoo alaab badan ayaan diyaarsanaynay. Lacagna waan isku soo ururinay. Khaalidna markaas wuxuu go'aansaday inuu aabihiis gaarigiisa qaato sababtoo gaarigiisa wuxuu ahaa mid loogu talagalay safarada dhaadheer. Markaas waxay ahayd waqtigii uu soo galayay salaada maqribka. Alaabtii waan diyaarsanay, teendhadii waa xiranay, cuntadii waan karsanay. Meesha ayaan isla soo fadhiisanay annagoo iska sheekaysanayna oo iska qosqoslayna. Markaas waxaan dareemay sidii inuu qof igu soo tuurayo kale shayga yararka. Markaasi dhagax yarka ayaan soo qaaday. Waxaan ku yidhi labadii wiil intaan fiishay, maxaa dhagxaanta igu soo tuuraysaa? Labadoodu way ila yaabeen, wayna igu inkireenba inay igu dhuftaan. Markii igu inkireen mar labaad ayaan weydiiyey arrinkii, laakiin way dhaarteen markan oo waxay dhaheen wallaahi maanan kugu soo tuurin. Aniga ugu dambeyn hadalkii waan iska daayay. Hadalkana markaasna waxaa iska sii wadanay ciyaarteenii. Kabanka ayuuna Khaalid noo tumayey, anigii Xasanna warqado ayaan ku dheelaynay. Ugu dambeyn Khaalid ayaa sikadiisa ku kacay asagoo kabankii tuuray, markaasna dhinaceena ayuu usoo dhaqaaqay asagoo markaasi si saa'id u gariiraya, cabsina ka muuqato ilaa heer uu nafisi waayey. Anigii Xasan waan fajacday. Markiiba waxaan bilaabnay inaan weydiino Khaalid maxaa kugu dhacay? Laakiin Khaalid wuu hadli waayey. Waxa kaliya oo awoodo waxay ahayd inuu dhagax weyn oo xoogaa noo jiray inuu farta ku taagayay. Markaas waxaan dhahnay na fahansii waxaa ka wadin. Ugu dambeyn wuxuu dhahay dhagaxaas buu yidhi waa arkay. Annagoo yaaban ayaa waxaan dhahnay maxaa aragtay? Wuxuu yidhi dhagaxa korkiisa buu yidhi waxaa taagnaa nin aad u madow, kaasoo qaba dharka dadka Suudaaniiska. Madaxiina wuxuu ku qabay cimaamad, wuxuuna lahaa gar aad u dheer oo cad. Dhagaxana ma uusan ku korfidhin oo wuxuu ahaa sidii inuu duulayo kale. Annagana wuxuu nagu soo fiirinayay indho aad u cabsi badan. Annagii oo yaaban ayaa waxaan aragnay markaasi Khaalid indhihiisa inay markaa gadaal madaxiisa ugu laabteen oo indhihii cadaadeen. Khaalid markaas wuxuu bilaabay inuu gariiro, haddana dhidid aad u badan ayaa ka da'ayay. Isla markiina wuxuu bilaabay inuu mar labaad ku taago farta dhagaxii. Asagoo markaasi afartiisa raacnay, markaana waxaan aragnay ninkii uu sifeeyey oo dhagaxii kasoo deganaya. Dhinaceena ayuuna u soo socday. Waxa arrinta la yaab kale ay tahay inuu ninkaasi uu mid keligii socda uusan ahayn, uu watay markaasi laxo. Asaga markii uuna soo gaari rabay in yar markuu noo jiro ayaan aniga markaasi geesinimo iska muujiyey. Waxaana ku yidhi assalaamu calaykum. Iima uu jawaabin. Waan ku ceshay. Waxaan ku idhi jin miyaa taa mise iisi? Asaga markaas wuxuu igu yidhi ninka ariga raaca ayaan ahay, Maxmuud ayaana la yiraahdaa. Anigii markaasi waa nafisay markuu magaciisa ii sheegay. Waxaana ku yidhi soo fariiso. Markuu ninkii fariistay wuxuu dhahay biyo ma heli karaa? Markaasi Xasan ayaa biyo u soo shubay. Anigana waxaan u soo shubay koob qaxwa, timirna waan u keenay si aan macnaha ugu soo dhaweyno. Laakiin isagii markuu timirta arkay, fajac ayaa ka muuqday. Wuxuuna yidhi waan xanuunsanayaa ee timirta ma cuno. Ninkaas waxaan ku yidhi dhibaato male, xabad kaliya ka cun, timirta xanuun male. Wuu diiday inuu timirta cuno oo qaxwaha kaliya u cabbe. Sidii u fadhiyey waxaan dareemay inay markaasi laxihii meesha ka dhaqaaqeen. Markaas waxaan ku yidhi laxaaga way tageen amay ku lumaan saxaraha. Wuxuu dhahay 5 sano ayaa markaasi laxahani raacayay, weligoodna way garanayeen guriga geeska loo maro. Markaasi dhibaato male. Aniga waan yaabanaa. Kumanaan su'aal ayaa madaxayga markaasi wareegaysay. Meeshan waa meel saxara, cidna kama agdhowa. Sidee ayuu markaasi xoolihiisa ugu dhaqanayaa? Markii dambe waa iska aamusay, asagana anaga ayuu nala sheekaysanayay. Ugu dambeyn wuxuuna weydiiyey maxaa meeshaan ka soo doonteen? Aniga ayaa u jawaabay waxaanan idhi meeshaan waxaa ka soo doonay inaan markaas jawiga ku bedelano maadaama aan ahayn kuwa hadda dhow qalin jabiyey. Markaas wuxuu nagu yidhi haye meelo badan oo la aada ayaa jiro oo fiican, laakiin meeshaan saxaraha maxaa ka soo doonteen? Waxaa dhahnay cillada iyo waxaasaan iska rarabnay. Markaas wuxuu yidhi idinka kama baqaysaa miya inaad jin la kulantaan? Waxaa dhahnay haddii aan salaadeena tukanayno, qur-aankeennana akhrisanayno, nama dhibaateynayaan. Kadibna Khaalid ayaa hadlay. Wuxuu dhahay wallaahi inaysan waxba igaga qaadi karin sidiisa ayeedii waxba igaga qaadi karin. Shahaaga cab kadibna tag. Asagoo qoslaya markaas ay kaftan ka tahay. Markii intaas yiri Khaalid, odaga wajigiisiiba wuu isbedelay. Markaasuu qayliyay. Wuxuu dhahay ha ku khaldamin, haddii kale way ku dhibaateynayaan. Markaasi odaga intaas uu yidhi anaga waan aamusnay xoogaa.
kadibna Khaalid ayaa wuxuu bilaabay inuu qoslo. Markaas ayuu wuxuu yidhi hadday ii yimaadaan buu yidhi wallaahi koobka shaaha ma dhaqaajin karaan. Odaygii si saa'id ah ayuu u carooday, markaasuuna si xooga dhulka u dhigay koobkii, wuuna istaagay wuxuuna dhahay waan nimacsalaameynaya, waxaan dabagelayaa arigaygii. Markii uu istaagay waxaan rajeeyey inuusanba istaageenba, sababtoo ah markii uu saa u kacayba waxaa ishaydu ku dhacday lugihiisana ma ay ahayn lugo uu bila'aadan leeyahay. Cagihiisu waxay ahaayeen cagaha dameerka oo kale oo madow. Markaasna meeshii ayaan ku qallay anigoo moodayay sidii inuu wadnahayga istaagay oo kale cabsi darteed. Mana aan istaagin markii ay istaageen Khaalid iyo Xasan si ay u macsalaameeyeen odagaas. Meeshii ayaan fadhiyey. Khaalid ayaa haddana mar labaad odagii la hadlay, wuxuuna ku dhahay adeer haddii aadan beri wax shaqaa haysan habeen dambe waadna soo booqan kartaa, waxaana kugu casuumaynaa casho. Markaas odag wuxuu dhahay habeen wanaagsan. Intuusan tegin ka hor Xasan ayaa markaasi wuxuu arkay xaaladeyda, wuxuuna igu dhahay muraad maxaa kugu dhacay? Anigii waxaan bilaabay inaan shigshigo cabsi darteed, waxaana iri waxba iguma dhicin. Odaygii ayaa markaasi ii soo jeestay, wuxuuna ku dhowlcadeyn jeesjeesa. Markaas ayuu wuxuu igu yidhi wiilkaygii Muraadow, ma rabtid miyaa inaa ii dhawaysid dhinacii ay xoolahayga aadeen ama ilaa aad dhagaxaas ka gaarayno? Markaas waxaan ku dhahay maya adeer, aad ayaan safarkii uga daalanahay, marka lugaha ay xanuunaya, waa mahadsantahay kuma dhaweyn karo. kadibna odaygii wuuna macsalaameeyey. Xasan iyo Khaalidna dib ayay usoo fariisteen. Khaalid oo qoslayay ayaa wuxuu dhahay wallaahi odagan waxaa weeye oday aad u naxariis badan oo aad u furfuran. Xasan arrintii wuu ku raacay, kadibna aniga ayay ii soo jeesteen, waxayna arkay xaaladayda. kadibna waxay igu dhaheen maxaa kugu dhacay? Anigana waxaan garan waayey si qaab aan ugu sharaxo in qofkani ama jinkani inuu iska soo dhigayay qof. kadibna intaan fiirshay waxaan ku dhahay odagan aan arkaysaan qof caadiya ma ahayn. sidii aan filanayayba labadooda hadalkayga run umaysan qaadan. markaas wuxuu igu dhahay Khaalid waxaan u malaynaya inay hurdo ku hayso ee oraseexo. markaas waxaan ku dhahay ninka cagihiisa waxay ahaayeen kuwa dameer kuwooda kala ah. sidoo kalena markii aan sari timirsi wuu diiday. markaas Khaalid wuxuu dhahay waa daalan tahay, waxyaaba ayaa istustusaysa ee marka oraseexo. saacad kadib ayaa kasoo wareegtay. anaga dabkeena waan daminay, alaabteennana waa guranay, waxaana ku laabanay markaasi teendhadii. Khaalid iyo Xasan isla markiiba seexdeen, laakiin aniga il waa issaari waaye. sababtoo ah maanta waxaan isweydiinayay ma indhahaaga ayaa kugu ciyaaraya mise ninka jin ayuu ahaa. fakarkaygii waxaa iga jiiray markaasi sharkan ka imaanaysa bannaanka teendhada oo aan garan waayey waxay tahay. si fiican ayaan usii dhegaystay waanan garan waayey. saas darteed madaxayga ayaan kasoo saaray teendhada si aan u eego waxa codkaas sameynayo. midig iyo bidixba waan eegay. intii aan eegayay waxay ishaydu qabatay dhagaxii weynaa ee markii aan dhagaxii eegayba waxaan arkay odagii noo imanaya oo markaasi dhagax ku kor fadhiya, asagoo ay markaasi ag joogaan laxyihii uu markii hore watay, kaasoo markaasi u qoslayay si saa'ida. qosolkiisa ilaa uu heer dhagahayga ka dhex gariirayay. isla markiiba waan acuudu bilaystay. dib ayaa noogu laabtay teendhada, anigoo markaasba bilaabay inaan quraan akhriyo. xoogaa kadib anoo bartaasi jooga oo markaasi maro korka iga saaran tahay ayaa waxaan u baahday markaasi inaan soo kaasho. aniga waan ogaa meeshaan fadhiyay inaanan ku kaashi karin, sidoo kalena bannaanka uma bixi karo sababtaa odagii ayaan ka cabsanayaa. waxaan isiri meesha fadhi xoogaa waxaa laga yaabaa kaadida inaa ilowdin. saacad ayaa kasoo wareegtay, kaadadiina ma ilaawin, waana u adkaysan waaye. ugu dambeyn waxaan soo qaatay toosh, sidoo kalena caagad biyo ayaan soo qaatay, waxaana kasoo baxay teendhada. intii aan meesha socday waxaan eegay geesaha dhagixii ayaana eegay, laakiin odagii meesha ma joogo. alxamdulilah ayaan idhi. ugu dambeyn wuu tegay. intaa xaajadayda gudanayay ayaa markaasi tooshka iga damiyey. waan yaabay sababtaa batariyaasha mar dhow ayaan gashay. waa isku dayay inaan haddana shido, laakiin wuu shidmi waaye. markii dambe moobeelkayga ayaa soo qabsaday oo waa shitay. markaa xaajadayda dhammaystay dib ayaan uga soo kacay meesha oo waxaan bilaabay inaan u lugeeyo dhinaca teendhada. anigoo socda ayaa markaasi cod gadaasheeda ka maqlay. khaladka aan sameeyey wuxuu ahaa inaan gadaal usoo jeestay oo aan isla markiiba cararin. markii aan saa usoo jeestayba waxaan arkay isla odagii oo markaasi wejigiisa caro saa'id u daran ay ka muuqato, indhihiisa heeray guduuteen. markaasna waan gartay inuusan khayr u socon. waxaan dareemay sidii inuu wadnahayga caloosheeda ku dhex dhacay oo kale, lugahaygana meesha ay ku qalaleen. cabsi saa'ida ayaana i gashay. markaas ayuuna kadibna odaygii igu yidhi ha cabsan, aniga wax dhibaataa kuuma geysanayo. haddii aad hadalkayga maqashid wax dhibaataa kuma soo gaarayaan. kaala iraac Muraad, aan isbahanno.
aad ayaan u naxay markaan arkay inuu codkiisa sidiisii hore uu aad iyo aad ugu weyn yahay. Anigii ma aqaan, odaygii waxaan bilaabay inaan dabagalo, kadibna waxaan u dhaqaaqnay dhinacii dhagaxa weynaa. Markaasi aan dhagaxa gaarnay, odaygii wuu fadhiistay. Aniga waxaabaad moodaa inuu qof gadaal iga riixayay oo kale, oo aniga niyadeyda kumaan tegin meesha. Markii odaga fadhiistay ayuu kadibna wuxuu yidhi, adoo mahadsan Muraad, waxaan rabaa inaan kula hadlo ee fadhiiso fadlan. Aniga markaasi waxaa iga socday dhidid aad u badan, wadnaha ayaana i gariirayay, hadalkiisa ayaana yeelay, kadibna waan fadhiistay. Markii aan saa u fadhiistayba, odaga wuxuu bilaabay inuu hadlo. Wuxuu yidhi, ha cabsan, aniga wax dhibaato ah kuuma geysanayo. Waan ogahay inaad lugahayga aragtay oo aanad ogtahay inaanan bila'aadan ahayn, laakiin wax dhibaato ah kuuma geysanayo anigu, sababtoo ah adigana ma aadan dhibaateen. Cid ka mid a qabiilkayga ama aniga ah qofna kuma soo weerarayo, laakiin waxaan ahay la soo diray oo markaasi u soo diray qofka ugu sareeyay qabiilkayga. Asaga kor ayaan u fiirinayay anigoo yaaban, sababtoo ah ma garanayo qofkan uu ka hadlayo oo madaxa qabiilkooda ah. Madaxa qabiilka wuxuu aad uga carooday ereygii uu yidhi Khaalid, markaasna wuxuu ii soo sheegay inuu ka rabo Khaalid inuu raaligelin bixiyo. Haddii uu saas sameyn waayana noloshiisa wax dhibaato ma ahayna wax kale inuusan arkaynin. Anigii carruurtayda ayuu madaxa qabiilka noo xilsaaray inaan ilaalino. Haddii aad isku daydaan adigii saaxiibada inaad meeshan ka baxsataana wixii idinku dhaca annaga niima geysan. Anigoo naxsan ayaan istaagay, markaas ayuu haddana odaygii igu yidhi, habeen dambe bacdal cisho ayaan isoo booqanayaa, markaasna waxaan rabaa Khaalid inuu raaligelin bixiyo. Haddana waxaan iga sii tegayaa wiilkayga Danhash si uu nii ilaaliyo 24 saacadood. Ilaalintana waxay ka bilaabmaysaa ilaa hadda. Ma i fahantay mise maya? Aniga markaas anoo cabsanaya ayaa haa ku idhi, kadibna waxaan ku laabtay teendadii. Markaasna madaxa ayaan gacmaha saartay anigoo aad u naxsan. Khaalid waa nooca aadka u dhaga culus, waana mid aad u xoog weyn. Waxyaabahan haddaa ku dhaho waxay u badan tahay inaysan i aaminaynin. Marka habeenkii dhow waxaan ka fakarayay si aan arrintaa ugu sheegi lahaa. habeenkaas markaas waxaa seexday anigoo aad uga walwalaya baxarkii uu nagashay Khaalid. Subaxii ayaa xilli dambe soo kacay, waxaanan arkay inay labadii wiil ka baxeen bateendadii. Banaanka ayaan u baxay, mise quraac intay karsadeen ayay kadibna banaanka ku ciyaarayeen. Markaas wuxuu bilaabay Khaalid sidiisii inuu jees bilaabo oo qosqoslo. Anigii intaa xanaaqay ayaa markiiba ku booday feer ayaan afka kaga dhuftay, taasoo ku sababtay inuu dhiig badan ka yimaado oo khamiiskiisa caddaa kaga daato. Khaalid oo isla markiiba xanaaqay ayaa wuxuu bilaabay inuu ifeero, in badan ayuu iga xoog badnaa. laakiin Saciid ayaana kala qabtay, anigiina teendada ayuu nagu xishay. Markii aan teendada ku laabtay ayaa waxaan kartay Khaalid xooggii uu ifeerayay darteed inaan madaxa dhagax ku dhufsaday, taasoo bilaabay inuu madaxa iga dhiigo. Xoogaa kadib dhiigii wuu iga joogsamay. Khaalid ayaa teendada iigu yimid, asagoo markaasi yidhi iga raali noqo, waa khaldamay. Marka Khaalid wuu gartay khaladkiisii inuu igu soo boodo, anigana waan raali gashay. Xoogaa kadib waan degnay, quraacdii ayaa isla cunay, anigana markaas ma garanaysa hadalka ugu sheego. Markii aan wada degnay ayaan markaa hadalkii dhan u sheegay iyo khatarta aan ku jirno. Ma filanaynin in labada wiil ay aamini doonaan, laakiin way u rumaysteen. Markaas ayuu yidhi Khaalid, haye habeenkii markii la gaaro waa raaligelin doonaa, si tartiiba ayaana u tegaynaa. Markaas ayuu Xasan yidhi, haddii aan hadda si tartiiba u baxno waxaa laga yaabaa inayna soo dabagaarin maadaama ay si weli subax tahay aan meesha ka baxsano. Markaas isla markiiba hadalka markuu intaas yiray ayaa waxaa bilowday eyga sidii inuu qof dhahayo kale, waan ni maqlayaa. Waxaan fiirinay geesaha laakiin waxba maana arag, wax eye meesha ma joogin. Eyga codkiisa wuxuu ahaa mid aad u layaab badan, sidii inuu cod dabiiciya uusan ahayn oo kale. Markaas ayaan garanay annagu inay ahaayeen jimakii, kuwaasoo ahaa iyaga inayna ilaalinayaan 24 saacadoodba, wax kastoo aan dhahayno oo aan samaynayna inay og yihiin. Markaas ayaa Khaalid hadlay, wuxuu dhahay ka warrama xoogaa kiilooyin haddii aan meeshan ka fogaano si aan u raadino bakeyle aan markaas soo ugaarsano si aan habeenkii ugu cashayno. Markaa waxaan fahmay inuu Khaalid rabo inuu hadalka bedelo. meeshii markaa tagnay, markaas waxaan bilownay inaan markaasi raadino bakeyle, laakiin si kastoo aan u raadino meel kastoo aan galno waa ka weynay. Khaalid waxaan ku dhahaa iska laabano, laakiin Khaalid wuxuu dhahay ma laabanayo anigoonan hilib bakeyle haysan. Laakiin annaga sideena kale waa iska haysanay hilib, balse Khaalid ayaa wuxuu ku adkaystay inuu maanta cuno hilib bakeyle. saacad ayaa ka soo wareegtay, welina waxay raadinayeen bakeyle. Anigii markaas caajis ayaan dareemay, waxaan ku laabtay gaariga, waxaanan bilaabay markaas inaan sigaar cabo. Xoogaa yar kadib waxaan maqlay qaylada Khaalid isagoo ku haya qaboqiisa kaa baxsan, ku dhufa xabada. Markii ayaan soo eegay, mise waxaan arkay Xasan oo la ordaya xabadiisii, asagoo markaasi wax ceyrsanaya. Waxa uu ceyrsanaya aniga ma arko, waan yaabana waxaan isleeyahay wiilka maxaa ka khaldan. Xoogaa kadibna wuxuu riday xabadii. Xasan markii uu xabada riday, isla markaas waxaan maqalnay qayle aad u dheer, qof bila'aadan oo qaylinaya.
anigii waan ku soo ortay waxaan dhahay yaad xabadda ku dhufatay wuxuu dhahay cidna kuma dhufan xasan oo naxsan markaasi wuxuu dhahay kaliya aniga bakayle ayaan arkay bakaylihii ayaana xabadda ku dhuftay markaas waxaan ku dhahay laakiin qof ayaa qayliyey sidana xabadda qof ku dhufatay oo kale waxaan ku sallinay markaasi nebiga waxaana u dhaqaaqnay dhinaca qaylada ka yeertay annagu dhinacaas markaa u dhaqaaqnay waxaan aragnay geedo badan oo hula markii aan aniga galay oon dhinac kasta ka raadiyey waxba ma arag markii aan ka soo baxayna waxaan arkay xasan oo taagan asagoo madaxa haysto meeshii uu eegaya ayaan eegay mise waxaan arkay dhiig dhulka ku yaala dhiigaasoo ahaa mid aad u tiro badan mana ahayn dhiigaasi mid ka iman kara bakayle yar xasan markaasi cabsi saa'id ayaa gashay sababtoo wuxuu isdhahaya qof ayaa dishay markaasna wuxuu bilaabay inuu ooyo annaga markaas waxaan bilownay xasan inaan ku shubno biyo annagoo isku dayna inaan dejinno xoogaa markii la joogayba wiilkii isla markii jirkiisoo dhan wuxuu noqday sida barafkii wuxuuna bilaabay inuu gariiro waxaan damacnay inaan kor u qaadno laakiin dhulkuu ka fog waayey sababtoo labadiisa lugood ayaa isku dhegnaa markii aan dhulka ka dhaqaajin weynay ayuu markaasi khaalid igu dhahay adiga ag fadhiiso anigana gaariga ayaan u soo dhawaynayaa markaasi khaalid wuxuu u dhaqaaqay dhinaca gaariga anigana waan ag fadhiistay si kadisa ayaa waxaan bilaabay markaasi inaan maqlo dad ooynaya dadkaasoo aad moodid dumar sidoo kalena ay ku dhex jirto oohinta caruur yaryara sidoo kalena ay ka dhex qaylinayaan dad dhan oo isla ooyayaan ayna ku dhex jirto waxaa isla markiina lagu bilaabay in dhinac kasta dhagaxaana looga soo tuuro khaalid oo arrintaasi arkay ayaa si degdeg gaarigii dhinaceena u soo dhaqaajiyey wuxuuna dhahay dhaqso soo kor aniga xoogaygo dhan ayaa markaasi xasan ku soo qaaday kaasoo markaasi sooxay waxaana bilownay inaan gaarigii si degdega ku kaxayno markii aan gaariga wadnay ayaa waxaa arkay inay balaayo iskeen tusto hadba islaan ayaa soo istaagaysa waddada markii aan ka leexano ayaa ari soo istaaga haddana waan ka leexanaa xoogii aan ku wadnay gaariga ma aanan joojin ilaa aan ugu dambeyn ka gaarnay markaasi teendhadii markii aan gaarnay waxaan bilownay xasan inaan biyo ku shubno annagoo isku daynay inaan kicino wuu kici waayey sidaas darteed ayuu khaalid wuxuu igu dhahay waxaa laga yaabaa inuu kaco ee markii uu kaco si uu cunto u helo gaajo ayaan hayse ur cunto noo soo kari anigii waan ka soo baxay teendhada markii aan banaanka jooga anigoo isku dayay inaan cuntada kariyo ayaa waxaa maqlay markaasi xasan qayladiisa asagoo ku haya waa ku baryayaa ma dilin aniga iga qabta wuu i gowracayaa waxaan bilownay inaan isku dayno inaan dejinno wiilka laakiin wuu degi waayey markaasi waxaan maqalnay isla oohintii dumarkii ooyayey hase ahaatee markani waxay ka dhex ooyayeen isla teendhada markaasna isla markii xasan ayaan kasoo jiidnay banaanka markaa istaagnay ayaa teendhada gudaheeda waxaa ka dhex kacay dab khaalid ayaa wuxuu dhahay aan ka baxsano meesha dhaqso gaariga ina geli aniga markaas ayaa waxaan soo xasuustay digniintii uu ii degay odayga cajuuska ayaa markaa waxaan ku dhahay taasi xal ma ahan ma ka baxsan karno meeshan waxaan ku idhi meeshaan aan fadhiisanno oo aan raaligelin bixinno ilaa ay naga cafiyaan balse khaalid wuxuu yidhi aniga gaariga waan dhaqaajinayaa ma soo fuulaysaan mise waan dhaqaajiyaa markaasi xasan isla markiiba gaariga wuu fuulay aniga markaan arkay inay labadoodaba gaariga fuuleen ma rabin inaan meesha ku haro sidaas darteed anigana gaariga waan fuulay niyaddayda markaasi waxaa soo gashay inaan markaani nabad nahay laakiin dhinaca geeskaa markaan eegay waxaan arkay ninkii odaga ahaa oo dhagaxa kor fadhiyey kaasoo dhagaxa ka soo ordaya oo gacantiisa ugu jirto silsilad aad u weyn asagoo xoog noogu soo ordaya anigoo isdhahay uuna soo gaari rabaa ayuu gaarigii khaalid wuxuu bilaabay inuu si xooga ku dhaqaajiyo gaarigii oo xoog ku socda ayaan waxaa aragnay in odaygii si xooga noo ceersanayo asagoo markaasi marba marka kasii dambaysa noo soo dhawaanaya gaariga wuxuu bilaabay khaalid inuu boqolkiiba boqol ku wado laakiin bilaa faa'iido sababtoo ah odagan wuxuu ahaa mid aad u dheeraynaya indhihiisana waxay ahaayeen kuwo aad u guduudan ilaa uu isla soo simay daaqadda dhinacaan fadhiyey markaasna wuxuu garaacay dhalada wuxuuna dhahay deji waan gartay odagani inuusan wax khayra iisoo wadin haddii aan hadalkiisa maqlo sidaas darteed waan dhegaystay taasoo aad uga caraysiisay wuxuuna bilaabay inuu feer la dhaco daaqadda taasoo ugu dambeyn ku sababtay inay daaqadda dhaladeedii soo jajabto markii ay jajabto odagani wuxuu si saa'id iskugu dayay inuu isoo qabto gaarigana igala soo baxo laakiin nasiib wanaag khaalid ayaa si xooga gaariga u waday kaasoo markaasi iga leexiyey odagii hoos ayaan u fiiriyey muraayadii jajabtay oo taasoo markaasi dhabteeda ku daadsaneed anigoo markaasi wadnaha i gariiriyo welina ka cabsanaya odagii khaalid xooggii u waday gaariga dartiis taasoo ku sababtay ugu dambeyn inaan odagii meeluu ka baxa wayno marka ugu dambeyn nabad ayaan ku gaarnay magaaladii markii aan gaarnay khaalid wuxuu igeeyey gurigii markii aan gaaray waxaan arkay inay xaafadaydii oo dhan hurdaan qolkayga ayaan galay hoosta ayaan ka xirtay daal dartiisna waan seexday anigoo aan garanayn qaabka aan ku seexdayba sababtoo ah aad ayaan u naxsanaa markii aan seexday ayaan waxaa markaasi riyada ku arkay odaygii asagoo isoo hor istaagay wuxuuna igu dhahay saaxiibkaa waxay iga dilay wiilkayga mana aan ka hari doono
waanan u argudi doonaa wiilkayga oo iga dilay. Hurdadii ayaan ka soo booday anigoo si saa'id u naxsan. Waxaanan bilaabay markaas inaan 2 ragcadood tukado. Markii aan tukadayna hurdadii ayaan ku laabtay. Subaxii markay ahayd waxaan aaday Xasan anigoo markaasi u sheegay riyadii. Xasan waan u jeeday inuu markaasi cabsanayo oo waxun ku dhici doonaan, laakiin wuxuu iska dhigay qof geesiya. Wuxuuna dhahay gurigeena ayaan joognaa hadda, wax dhibaato naguma dhacayso. Muddo ayaa ka soo wareegtay. Alxamdulillah arrintii waan iska ilaaway. Waxaana markaasi magaaladii aan joogay ka helay shaqo fiican. maadaama aan noqday mid aad u mashquulsan, ma ahayn sidii hore mid ula kulma Xasan iyo Khaalid. Shaqadayda ayaan ku mashquulay. Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo shaqada xilli hore aaday ayaa waxa isoo wacay markaasi Khaalid. Wuxuu igu dhahay asagoo ooyaya, waxaan u baahanahay si degdeg ah inaad u timaadid guriga Xasan. Waxaan weydiiyey markaasi waxa dhacay, laakiin wuxuu igu dhahay guriga Xasan imow, markaas ayaa ogaan doontaa. Kadibna wuu jaray taleefanka. Anigii shirkadii waan ka imid, waxaana u dhaqaaqay dhinaca guriga Xasan. Markii aan gaaray waan la yaabay sababtoo gaariyaal badan ayaa joogay. Gaarigii booliska, gaarigii ambalaasta iyo sidoo kale dariska dadkii ahaa. Gudaha markii aan galay waxaan arkay markaasi Khaalid, Xasan aabihiis iyo adeerkiis iyo carruurtii yararka kulligood oo ooyayo. Intii aan gudaha gelin ka hor waxaan arkay markaasi ambalaasta oo la sii gelinaya qof meyd ah, markaasina ay maro cad dusha ka saaran tahay. Markii aan weydiiyey Khaalid maxaa dhacay, wuxuu igu dhahay nasiib darro Xasan wuu dhintay. Arrintaasoo markaasi aniga wadnaha si aad u xun ii xanuujisay. Waxaan bilaabay markaasi inaan dhulka ku dhaco oo ooyo oo qayliyo. Markii aan degay ayaan waxaa Khaalid weydiiyey wixii ku dhacay. Khaalid markaasi wuxuu igu yidhi 2 isbuuc ka hor wiilka si saa'id ah ayuu isku bedelay, wuxuuna bilaabay inuu xanuusto. Qofna ma ogeyn wixii ku dhacay. Reerkiisa ugu dambeyn waxay u geeyeen dhakhtar. Markii la baaray waxaa la yidhi wax cudura lagu sheegi karo ma jiro oo uu caafimaad qabaa, laakiin caafimaadkiisu wuxuu ahaa mid saa'id uga sii darayo. Habeenbarkii markay ahayd ayuu wuxuu ahaa mid soo kacaya asagoo iska qaylinaya sidii in la cadaabayo oo kale. 3 beri ka hor waxaa loo geeyey wadaad kaasoo bilaabay inuu quraan ku akhriyo, laakiin xaaladiisu waxay mid aad uga xun, taasoo markaasi kuujinka jirkiisa ku jira ay si xun u degeen. Waxaana jirkiisa ku jiray markaasi odaygii oo ahaa mid cadaabayo oo dhahaya wiilkayga ayuu iga dilay. Danhash oo ahaa kiina looga tegay inuuna ilaaliyo ayuu ahaa kii uu Xasan dilay asagoo markaasi bakaylo u qabay. Maantay Xasan hooyadiis ayaa qolka gashay, waxayna markaasi aragtay Xasan oo iska soo deldelay saqafka qolkiisa. Xasan wuxuu ahaa mid u adkaysan waayey cadaabtii uu ku jiray, saas darteed wuxuu go'aansaday inuu nafsada isdhaafiyo. Aniga intaa markii aan maqlay murugo iyo xanaaqba waan dareemay. Maalmo markii laga joogay baaritaankii Xasan jirkiisa, ugu dambeyn janaasada ayaan ku tukanay waana la aasay. Muddo markii ka soo wareegtay murugadii wanaagga kala baaba'day. Bil ayaana ka soo wareegtay markii uu dhintay Xasan. Maalmo kadib Khaalid ayaa markaas wuxuu igu casuumay maqaaxi aan aadi jirnay. Maqaaxidii markii aadna oo ka soo cashaysanay ayaan kadibna waxaan soo kornay gaariga anagoo sheekaysanayno maalmihii murugada lahaa iyo kuwii farxadda lahaaba ka sheekaysanno ayaa waxaa naga soo horbaxay dibi aad u weyn kaasoo markaasi raba geeska inuu u leexdo, laakiin dhinaceena ku soo leexday. Markaasi Khaalid wuxuu awoodi waayey inuu gaariga leexiyo, markaasoo fariinkii u baxsaday. Af ayuuna markaasi gaariga u gashay birta korontada. Aniga intaas ayaa miiri ugu dambeysay. Waxaana soo kacay anigoo markaasi kor saaran sariirta hospitaalka. Markii aan fiirshay waxaan dabcay inaan kaco, laakiin waan awoodi waayey sababtoo ah lugtayda bidix ayaana jabtay, gacanna way iga jabtay. Markaas waxaan weydiiyey Khaalid ma nool yahay? Haa ayay igu dhaheen, laakiin wuxuu si xun u gaaray dhaawac kaasoo ku sababay Khaalid inuu noqdo mid aad u curyaana. Farxad ma dhaqaajin karo, ama sariirta ayuu saarnaanayaa ama kursi curyaanka. Bila ayaa ka soo wareegtay. Alxamdulillahna aniga waxaan awooday inaan ugu dambeyn ka caafimaado jababkii soo gaaray, laakiin Khaalid weli wuxuu saaran yahay sariirta, rajana ma leh inuu dib dambe noqon doono qof socda.